madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa furay shirweynaha hanaanka geedi socodka dimuqraadiyadda maamul wanaagga iyo ka qaybgalka bulshada waxaana ka soo qayb galay 54 tuulo oo kamid ah inta badan gobolada Puntland golaha xukuumadda iyo sidoo kale mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xukuumadda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ujeedka shirweynaha ayaa looga hadlayay kor u qaadida hanaanka dawladda iyo isdhexgalka bulshada xoojinta doorka haweenka iyo gacansiinta abuurista fursado shaqo maxamed Cabdiwahaab oo ugu horeyn baa kulanka shirweynaha ka hadlay ayaa ka warbixiyay shirweynahan iyo waxyaabaha u qabsoomeyntii ku guda jireen shirweynahaasi waa barnaamij weyn oo ummadda reer Puntland iyo dawladda Puntland qiimo weyn ugu fadhiya gaar ahaan marka laga hadlayo hanaanka dimuqraadiyadda maamul daadejinta iyo kor u qaadista ka qaybgalka bulshada reer Puntland sidaan la socono Puntland waxay u dhaqaaqday jihada ah in waddanka la dimuqraadiyeeyo in la furo hanaanka dawladda in shacabku ka qayb qaataan go'aamada dawladda barnaamijkan waxaa laga fuliyaa 6 degmo oo degmooyinka Puntland ka tirsan oo 6 gobol ku kala yaal degmada Carmo gobolka Bari degmada Waaciya gobolka Karkaar degmada Baran Sanaag degmada Dangoroyo gobolka Nugaal degmada Boocame ee gobolka Sool iyo degmada Xarfo ee gobolka Mudug ku taalo kor loo qaado xuquuqda insaanka iyo xuquuqda aadanaha waa waxyaalaha asaaska u ah xuquuqda insaanka iyo xuquuqda aadanaha fahamka iyo ilaalinta dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga marka taasna waxyaalaha ugu taagan yahay ay ka mid tahay barnaamijku waxa kale oo muhiimadda uu siinayaa waxay tahay xoojinta doorka haweenka iyo dhalinyaradu ay ku leeyihiin nidaamka maamul wanaagga iyo daadejinta dimuqraadiyadda dumarkeenu waa qaybta ugu badan dadka iyo dhalinyaradeenu dhanka kale qaar kamid ah gudoomiyaasha 54 tuulo oo kamid ah gobolada Puntland ayaa si weyn iyaguna ugu adkaystay doorashada 2019 laga soo bilaabo golayaasha deegaanka ayna qabsoonto hal qof iyo hal cod uu mahadcelinaa dikooniya iyo waaba si muxuu ahaa niyad furan oo daah furan bay noo shaqeeyeen waxaan moodaa in dimuqraadiyadda la gaaray laakiin ma moodaa inuu ka hadlayo doorashada 2019 iyo shanta soo waliga dhici jiray waxana ma dhici jirin waan dhacaysa waxaan ma fahanto odayaal dhaqan bay gacanta ugu jiraan waxa way marka doorashadu ka bilaamayso kursiga Cabduul Xaagaas fadhiyo baashu hoos bay ka soo bilaamaysaa tan fadlan waxaan ka codsanaa haddaan u baahanahay baashu goladiga bay ka soo bilaamaysaa 2019 wadada hadda waxa ninka siyaasiyiinta daba taageeraysa marka 2019 wax waayaan waa tagay Mareykan bay aadayaan 2003 markii afar bilood ka mid ah taageerayaan inagu marka xaaladdu mashasana waxay ka soo bilaabanaysaa degmooyinka iyo golayaasha deegaanka haddii aysan ku imaanin nidaamka doorashooyinka kama bilaaban karto inay ku timaado madaxweynaha iyo qof kale midna kuma imaanayo hal qof iyo hal laakiin waa inay ka soo bilaabtaa gunta ay ka soo bilaabtaa sida loo sheegayna ma aha in ay ku xiran tahay dawladda iyo xukuumadda nidaamkii iyo hay'adkii way la sameeyay aad baan ugu mahadcelinahay barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij runtii muhiim ah taabtayna meelihii loo baahnaa ee bulshadu ay ka bugtay laakiin ma rabnaa inaynu doorasho hal cod ah iyo hal qof gaarno waa rabnaa Soomaa madaxweynaha hadda talada haya aynu doorano sababtu waxay tahay madaxweyne cusub haddaynu doorano hawl adag baa u taal inta hawlaha la firganayo oo ballanqaadadii uu ballanqaaday la firganayo ayaa waqti ku dhaafaya waxa loo baahan yahay marka inay runta taabano qofkii hadlaya waa runta ka hadlo meeshaynu joognaa waa saxad Puntland baa ugu horeysay wax maamul dhisa Soomaaliya 98 intayna kala wasdilaynay iyadina wali waa gaari laadahay mustaway aynu doonaynay wasiirka dastuurka Puntland ayaa dhankiisa dul istaagay muhiimka shirweynahan isagoona u mahadnaqay cidii gacan ka geysatay shirweynahaasi shirweynahan muhiimadiisuna waxa ay tahay inaan dawladii iyo bulshadii degmooyinka joogay ay soo hor fariistaan oo wixii la gaarsiiyay ay bulshadu soo bandhigto dawladuna ay dhigeysato dadweynaha degmooyinka jooga ee shaqadaas aan qabanay ka marakaci doona ama ka hadlayba already inaad dhageysano wixii naga aadna ka tiraahdo gabagabadina madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shirweynahaasi soo xidhay ku dheeraaday dimuqraadiyadda iyo sida loo wajahayo caqabadaha ku xeeran
waa bilow runtii aada u wanaagsan weeye.